السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الحكيم ومانت جوجو سكول كأغونتا المستقيم فونديشن سيدا aad la socotaan waxaan ka hadalnaa waxyaalo kala duwan waxaan ka hadalnaa gurigii loo iibi lahaa iyo dhulkii loo dhisi lahaa iskuulka agoonta almustaqiim iyo qaybta kale dugsiga quraanka ayadana sidaas camal loo rabo in wax loo dhiso laakiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno in ramadaanka nagu soo socdo sida ogtiin ramadaanka waxaan sameeynaa familada agoonta ayaan cunto u iibinaa sanadadii la soo dhaafay familkiiba waxaan cunto ugu gadi jirnay $50 ramadaankan wax yar ayuu ka bedelan yahay cuntadii qaaliyooday abaar daran oo wadanka ka jirto iyo biyo la'aan marka waxaan sanadkan qorsheey doonaa hadii ilaa in $60 ugu yaraan familkiiba cunto loogu gado lacagtaas inta badan waxay ka timaadaa fitrooyinka fitradii aad dhiibi lahayd soonka markii dhamaadkiisa ayaad soonka bilowgiisa ama ka hor ayaad soo hormarisaa sida reerkii 5 caruur ka kooban Yurub ama Mareykanka ku nool $50 oo hay sidii halkii ruuxba $10 ayuu yahay taas ayaan intaan isku aruurino ayaan ramadaanka hore waxaan suurto galay ilaa 400 qoysas ku dhow inaan cunto u iibino ramadaankaana way ka badan yihiin ilaa 1000 inaan gaarsiino ayaan doonaynaa waxaan idin ka rabnaa insha Allah fitrooyinkiina iyo sida kale ma taqaan caadi ah u sadaqaysatiin inaad hal qoys afurisid insha Allah $60 hadii taas ay ka soo daahdo inaad ka qayb qaadatay afurida caruurta ay ciid sii doontaa $25 ilaa $30 ay ciidan noqon doontaa ciidii hore $20 ay ahaa jirtay marka taasna waa ku ogeysiinaynaa muuqaalkan waa muuqaalkii ugu horeeyay aan ku soo dhaweynayno ramadaanka aan idinku sii sheegayno in ramadaanka soo socdo oo hawshaas laga qayb qaato muuqaalada soo socdan insha Allah sharaxaad dheeraad ayaan idinkaga sii bixi doonaa laakiin hadda waxaan ka rabnaa inaad sii diyaar garowdiin lacagta aad ugu talagalasheen afurinta iyo ciidda aad meel sii dhigataan hadii aad ahayd ruux agoon hore u kafaala qaaday bishan ama lacagta laga rabay ama bishii hore aadan soo jawaabin ama lacagta aadan soo dhiibin baahiyo badan ayaa jiro waxaan ka codsanayaa idan inaad lacagtaas aad soo dhiibtid maadaama laga sugaayay oo mataqaana lagu xisaabtamayo qof kasto agoon kafaala qaado oo bil ka bil ama sanad lacag dhiibi jirta waa ku xisaabtanaa bishan waxa dhici kartay lacagtaada aad dhiibaysay macallin laba macallin inay mataqaana ku aadaneed laakiin adiga ama taleefanka qabanin wax kasta iska dhici karo ama lacag laan ay ku qabatay inaad nala soo socodsiisid sida aad tiraadid aniga bishan lacagta laga sugaayay ma isu galin bisha dambe ayaan lacagtaas dhiibi doonaa hal isii dabaro marka insha Allah yaana hadalka idinku badin hadal badan haan ma buuxiyo insha Allah ramadaanka loo diyaar garoobo insha Allah markastana sida aad noo taageeri jirtaan ayaan taageerada kaga sugaynaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa